29 bishii tagtay ee Febraayo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa ay xireen tiraha idaacadda Hiigsi Maxamed Cabduwahaab Nuur Abuuja. Wariye Abuuja ayaa dib xoriyadiisa u helay 2 bishan Maarso, balse shalay oo ay taariikhdu ku beegneed 7 Maarso ayaa mar kale la xiray wariye Maxamed Cabduwahaab Nuur Abuuja. Ehelada wariyahan ayaa waxa ay sheegeen in si aan wanaagsaneyn oo la dhaqmeen maamulka degmada Shibis kadib markii ay ka wardooneen xaalka wiilkooda. Hooyadan la murugaysan xaaladda ka qarsoon ee uu ku sugan yahay wiilkeeda ayaa waxa ay tilmaamtay in wiilkeeda la hor keeno cadaaladda, maxkamadna la soo saaro si tallaabo looga qaado haddii uu dambi leeyahay. Dhanka kale waa kuban qaar ka mid ah ehelada wariye Maxamed Cabduwahaab Nuur Abuuja oo codsaday in loo soo daayo wiilkooda baaqna u diray madaxda dalka. waxa ka codsanaa dawladda madaxda inta madax oo dawladda in wiilka dambi la'aanta lagu haysto in la soo deeyo. anaga waa rafaan raashin ma cunnaabeen iyo maalin hadda saakis u soo kacnay la hadda saana u wareeganoona wax noo qabanay male meesha tagtay waana laga soo burinaa wajigiisa xataa waa noo la diiday hadda saan godka jilcooba ka imid waa tuugnaa noola tusaata وانا لا سو ديدي كي ugu yaraa kii ugu hadal macaan ila hadlo ay dhahay guriga habar khadiija ka doon meel kasta hada tagna waa noo la diiday anaga ilaahay dartiisa noo lagu soo deey wiilkeena dambi malaha noo la soo deey wiilkeen dawladda waxa ka codsana madaxweynaha ra'iisul wasaaraha macal ciidamada oo dhan waxa ka codsana wiilkaas dambi malaha abaryartiisa ahay oo idiisna kaligiisa qabtaa wiil ahaan ilaahay wax badan aad kaligiisa oo idiisa qabtaa saana isaga oo ina wariyo waa kana waraaqdiisa kaaga daran wuxuu dambi oo leeyahay malaha waxa waay wiilkaas anaga waxa codsanaynaa dawladda ra'iisul wasaaraha madaxweynaha inta umada ogolaha shacbiga ku jirta iyo madaxtooyada fadhisa hanoola soo deeyo inta dhig loo kacana garab ma haysano waxna tusaa hataa malaha waxna qiimeynay malaha wiilka meel sidoo ku tooriya malooga hanoola soo deeyo waa idin baryaana noo soo deeyo idinka madax adaartin hataa wadanka dhan waa idin kaaga tageena rafaato waxaan amale qof gurigiisa joogo la soo qabanaa la xiraa wax micna lana oo lahayn wuxuu ahaa malaha wariye waay bas arday iskool dhigato wariye waxa ka codsanaa dawladda aan baryeena madaxweynaha ra'iisul wasaaraha arintan inay kacaan inay garab noo noqdaan madaxda garab noo noqoto anaga garab ma haysano sidii loo xiriilaa biyo ma naga degto saana u wareegona irid kasta daa tagno waana la soo burina meesha tagno waana la soo burina madaxdu waxa noo qabato aniga hadda waxa codsana hadda iga arkaasay anaga dambi ku moogni hadii dambi lagu haysto sharciga cadaaladda noo la keeno meelaha yaa lagu silcinin wayaal nafta la xariirinin hadii dambi lagu haysto sharciga la keeno markaati la keeno aragna markaatida waa ku qancayna laakiin waa la iska qabana anaga waxaan naqaanaa maxkamad in la saaro 4 markaati la keeno oo u dhaartaan inuu asaga dambi galay anaga saan ma ka bixi karno waa rafaadsanna ma harsana ma hoyano dadka xirimeele iska joogan asaga xariiriyo ku jira anaga xariiriya ku jirna maxkamadda la saaro markaatina la keeno markaatida waa ku go'naa anaga oo run laakiin saa amal cadaalad maahan markasta dawladda kun iyo koow jeer ilaa wasiirada ilaa xildhibaanada waxaan ka codsanaa arintaas soo farageliya waana guboosaa waa la xawsanahay qoys dhan oo hal wiil waxaa idinka tuugeena haddii noo soo deey karna xataa maxkamada noo keena markaatida noo la tuso wax cad noo la tuso laakiin waa la iska soo xiranaa waa la deynaa waa la soo xiranaa waxaasay ilaahay dartiisa maahan ilaahay raalli kama dulmi anaga waa noo la dulminooyaa wiilkeena garab ma haysto madax ma noo joogta meesha madax garabna siinaysa male anigoo Jamiil Cali Maxamed Cabduwahaab Nuur Abuuja hooyadiisaan ahay
marka wiilkayga si aan cadaalad ahayn ayaa loo sharci dar ayaa wiilkayga laygaga haystaa oo marba godka jilcow iyo marna lagu tilmaama guriga habar Khadiijo waa wiil wariye ah anaana dhalay oo madi ah dawladda walaalaha shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa wiilkayga in wiilkayga xuriyadiisa dib loogu soo celiyo hooyo dhib banaanay madi ugu yahay ilmihiisa guriga ku rafaadsiin hashil aan fiirsanayni way dawladda Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa wiilkaas xuriyadiisa iyo masabidkan oo yahay beentan oo la wado in laga dulqaado oo wiilkayga xuriyadiisa loo soo celiyo rafaadkiisa nabad sugid ay nagu haysan dawladda naga dulqaadan rabnaa anaga hooyo Soomaaliyeed aan ahay oo dhibana oo madi ku ah oo ilmihiisa hada waxaan si xataa aan u haynin guriga hashil aan fiirsanay way dawladda waxaan ku codsanaa wiilkayga xuriyadiisa inay soo celiso gardara lagu haystaa nabadgeliyana aan helno Soomaaliya nahay wadanka waan u dhalanay farmaajo haqayna inuu noo soo dhiciyaan ku codsanayna hada degmada hadaa tagna waxayna dheen hadana gobolka degmada qofka oo degan waxa la rabaa wax walba wuxuu dhaco degmada in macnaha maamulka oo weediyo oo qodobada lagu qaado wax aan lagu qaado ma leh gudoomiyaha wuxuu dhahay taga in sheeg maxaa lahaay meeshaanay godka jilco maxaa ka qabanayna anaga meesha ku xireeyaan taga marka dawladda waxaa ka codsanayna inay wiilkan iska soo deeyaan wax dambiyo oo leeyahay male maxaa loo inqaaba masaakiin waaye ma fahantay meel walba maamul ay leedahay waa in dabagal qofka lagu sameeyaa wax cadeen ay noo sheegeen male waxay dheen kulay maxamed xasan oo tagna saaka wuxuu yiri wax aan qaban karo male taga godka jilco maxaa ka sameeynayna waxaan anaga xaafada ku dhalanaa joognaa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay aadka u adag tahay in ay ka howlgalaan wariyaasha waxaana jiro tacadiye lagu kaco wariyaasha maahan markii ugu horeysay oo sidan oo kale wariye loogu xiro magaalada Muqdisho waxaana dhacda xilliyada qaar in ay jirdi la kulmaan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho